بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض داود يا دمانتين به waxaan maanta ku sugannahay xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland si gaar ah xarunta dhirkubcinta ee wasaaradda deegaanku ay ku leedahay magaalada Hargeysa maanta halkan waxa aanu idinku soo gudbin doonaa daawadayaal muuqaal kooban oo ka warramaya geedka mareerka loo yaqaano geedkaasi oo ka mid ah dhirta waxtarka badan u leh bini'aadamka isla markaasna isaga oo noocyo kala duwan ka baxa dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba bal geedkan waxtarkiisa cimilada uu ku baxo iyo noocyada dalkeena laga helo iyo faa'iidooyinka uu leeyahayba waxa inoo sharaxi doonaa Sayid Cabdillaahi Maxamed oo aqoon durugsan u leh arrimaha deegaanka isla markaasina ah madaxa xarumaha dhirkubcinta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Somaliland inta badan waxa laga helaa saddex mareer oo kala duwan mareer miyiga ku badan yahay oo waxa la yiraahdaa mareer docol baa la yiraahdaa laba mareerna magaalooyinka ku badan yihiin oo waa mareer bilaadi weeyaan saddexda mareer baa Somaliland laga helaa mareerku inta badanna wuxuu ka mid yahay dhirta dadkeenii hore ay isticmaali jireen markay sameynayaan bidadka samaysanayaan iyo kooraha iyo waxyaabaha guryaha looga baahan yahay baa laga sameyn jiray waxaana ka mid ahaa mareerku waxa kale uu isna muhiim u yahay oo ka mid ahaa waxyaabaha ay dadkeenii hore ay u isticmaali jireen qaraab ahaan oo wuxuu leeyahay midho fiican oo la cuno saddexda mareer ee imika Somaliland laga helaaba kuwa magaalada ku badan iyo miyiga laga helaaba saddexdaba waxay sameeyaan midho macaan oo la cuno waxa kale oo ay leeyihiin xooluhuna aad bay u jecel yihiin marka Afrika waxa jira mareer kale oo la yiraahdo Afrika Cardia oo isaguna Afrika ku badan baa isla jira laakiin Somaliland laga helin laakiin Somaliland sida guud saddexda mareer baa laga helaa waana kala design duwan yihiin oo mareer midhahoodu kala duwan yihiin mid midhiisu yar waaweyn yihiin oo ka inta badan ay u naqaan mareer bilaadiga labana aad bay isugu dhow yihiin waa mareer docolka iyo mid mareer oo imkan geedkan oo istaagan oo kala mareer ah oo midhiisu aad bay isugu dhow yihiin marka dadku inta badan labada mareer bay isku khaldaan kan iyo kamiiga laakiin farq baa u dhaxeeya qofkii arkay uu kala saari karaya inta badan seed bay ka baxaan oo seedkiisa waa la heli karaa saddexda mareerba inkastoo imika xooga labada mareer yaala laga helo magaalooyinka seedkiisa la helo oo isagoo geedan la heli karo wasaaradda deegaanka kale ay bixiso dadkana siiso oo dadku ay u isticmaalaan dadka xoolo dhaqatada ay xoolaha u beertaan dadka magaalada joogaan ay u isticmaalaan had iyo qurux iyo midhaba u isticmaalaan haddaynu ku noqono xogta ku saabsan seedkiisa ama iniyaha uu ka baxo saddexdaba saan u sheegnay waxa ka baxaan iniya ka baxaan haddaba way kala dabeecad duwan yihiin laba aad isku dabeecad dhow mareerkan mareer docolka la yiraahdo miyiga ka baxa iyo kan magaalada ka baxay mareerka yaryara labadaas xagga dheerarka aad bay isaga dhow yihiin oo 5 mitir iyo 6 mitir bay gaaraan waana degdegna way u koraan hore u dheereeyaan xagga caleentana way iska shabahaan waa sababta dadku inta badan aad isku khaldaan laakiin marka si fiican lagu fiiriso xagga midhaha kale way kala duwan yihiin galka midhaha ku jira marka si fiican loo eego caleentooda iyaguna way kala duwan yihiin mareerka saddexaad isagu ka duwan yahay labadaba totally isagu ka caleen balaaran yahay waana ka midho waaweyn yahay waana ka inta badan caan ku ah magaalooyinka ay dadku u isticmaalaan inay magaalooyinka ku beeraan midho ahaan loo isticmaalaan oo xitaa wax loo isticmaalaa fruit ama midhiisa waa la iibiyaa lacag baa la siistaa oo waa la gadaa lacag badan baa la siistaa waxa weeye dadka qaarna waxay u isticmaalaan kaljar ahaan inay ku daweeyaan dadka dhabarka xanuunaya iyo curquhu xanuunayaan maadaama dhareer fara badan leeyahay marka saddex mareer say u kala duwan yihiin xagga haddana uu soo noqdo dhanka cimilada oo kale mareerkan mareer docolka wuxuu ku badan yahay dhanka hawdka cimilada xigta ciid cas ayuu ku badan yahay inkastoo xagga dhanka buurahana uu jiro laakiin hawdku aad ugu badan yahay laakiin labada mareer kale waxay ku badan yihiin meelaha dadku dego siiba oo inta badan ku markaysid meelaha miyiga ku markaysid hadda waqtigan la joogana mareerkan mareer docolku wuxuu ku jiraa dhirta imika siyara dabar go'aysa waayo dadku aad bay u adeegsadaan oo waxay ka goostaan gudmaha iyo maxay ahayd daababka goosanaya hangoolada marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha climate change ku saameeyay waana sababta imika wasaaradda deegaanku waxyaabo badan oo mareerdada ka badan ay u beerto laakiin labadan kale loo kala ahaan aad buu dadku la qabsanayaan inuu badan yahay waana la beeraa seedkiisa